halkani waa BBC oo aad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemada magaalooyinka qaar Facebook iyo barteena internetka ee bbcsomali.com kulanti wacan akhyaarta hawada nagala xiriirtay meel kastoo aad naga maqlaysaan oo duhurnimo isniina 28 bisha December sanada 2020 arimahan barnaamijka duhurnimo idinku weynana waxa kamid ah dagaal khasaare naf iyo maalba geystay oo ka dhacay deegaanka dan la helay Ethiopia weerarkan khasaaraha ka dhashay naf iyo maalba ku ballaaran ayaa ka dhashay dhimashadu waa 15 maati bay leeyihiin haween bay leeyihiin odayaal bay leeyihiin rag bay leeyihiin aduu waxay dhimashada isku jiraan waa 15 bay dhimashadu maraysaa dhaawac ilaa 10 buuya saxafiyad Shiinaha u dhalatay oo gacan ka geysatay in la sheego habkii Wuhan ugu faafay fayraska corona oo lagu xukumay xabsi 4 sanadooda xaaladda magaalada Beledweyne maanta ay degan tahay kadib rabshado dhowr qof ay ku dhaawacmeen oo shalay halkaas ka dhacay halka gudoomiyaha maxkamadda gobolka Hiiraan uu digniin u diray dadka magaaladaas iyo guud ahaan gobolka waxaan digniin u dirayaa maanta dadka dawladda u shaqeeya ee la yiraahdo shaqaalaha rayidka dadka hay'adaha magaalada degan shaqaalaha ka dadka shirkadaha waaweyn ee la wada ogsoon yahay ka shaqeeya ee shaqaalaha shirkadeed ah odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan guud ahaan ganacsatada reer Beledweyne qodobadaasi kuwa kale aad ku maqli doontaan barnaamijkan uu soo saaray Axmed Mursal Xuseen aynu Aftaax Ibrahim Cageerna la socodsiinay balse marka hore barnaamijku waxaan ku bilaabaynaa wararka caalamka iyo Axmed Maxamed Ibrahim Axmed Nagaash baadsanid Cabdi Fataax saxafiyad Shiinaha oo tabisay maalmihii ugu horeeyay ee fayraska corona ka dilaacay magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha ayaa lagu xukumay 4 sano oo xadhiga Jiang Zhang waxa lagu helay inay warbixinaheedu dhiila abuureen oo ay dhaliileen sidii ay ugu horeyntiiba maamulku u maareeyeen safmarka qareenadii difaacay midkood oo markii xukunkaasi lagu riday suxufiyadda warfidiyeenka la hadlay ayaa yidhi 这个案子真的是很有价值和意义。第一，这个疫情是全世界的影响。 dhab ahaantii kiiskani waa mid muhiimadiisa leh ugu horeyn fayraskani waxa uu saameeyay caalamka oo idil marka labaadna Shiinuhu asaga waaba gooni dalalka kale waxa ay leeyihiin xorriyad dhanka saxaafadda balse Shiinaha taasi kama jirto Jiang Zhang waxay doonaysay in ay caawiso dadweynaha Wuhan waxay doonaysay in ay fahanto dhibaatada haysata oo ay caalamka kale ogaadaan si ay uga gaashaantaan 回避这种灾难嘛。 diblomaasiyiinta dhowr dal oo reer galbeed ayaa laga mamnuucay inay galaan maxkamad ku taalla koonfurta Shiinaha si ay goobjoog uga noqdaan dacwad lagu soo oogay 10 qof oo reer Hong Kong oo u dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda dadkaas waxa la qabtay iyagoo doonayay inay Hong Kong kaga baxsadaan saxiimad kuwa dheereeya waxaana lagu oogay eedaa inay sifa sharci darra ugu talaabayeen Taiwan madaxweyne ku-xigeenka koobaad ee Afghanistan ayaa ballan qaaday in la labanlaabi doono tirada ciidamada booliska ee magaalada Kabul arrintaasi oo ah mid lagaga falcelinayo korarka dilalka abaabulan ee magaalada ka dhaca doogasho iyo qaraxyo lagu leeday ayaa ka noqday dhacdooyin maalinle ah dalka Afghanistan xildhibaanada xisbiga dimuqraadiga ee Koongareeska ku jira ayaa ku tirtirsiyay madaxweyne Trump in ansixintiisii lagu diirsaday ee xeerka dhigaya in 900 oo milyan oo dollar loogu deeqo dadka safmarka corona saameynta badan ku yeeshay uu ku ladho taageero kale oo la siiyo shaqaalaha gudoomiyaha aqalka wakiilada Nancy Pelosi ayaa ku tilmaantay xeerkaasi tallaabo lagu bixinayo lacag naqad oo lagu bixinayo wax ka qabashada safmarka markab kalluumaysi oo Ruushka laga leeyahay ayaa ku degay badda Barents waxaana ilaa haatan la laayahay 16 qof markab kale oo goobta ka dhawaa ayaa samata bixiyay 2 qof oo kaliya oo kamid ah shaqaalaha markabka degay ugu dambeynna Azerbaijan ayaa sheegtay in askari ka tirsan ciidamadeeda iyo 6 gooni goosadka Armeeniyiinta lagu dilay weerar ka dhacay gobolka lagu muransan yahay ee Nagorno-Karabakh hase yeeshee Armeeniya ayaa sheegtay inaan haba yaraatee wax weerar ah gobolka ka dhicin warkii duhurnimada waa naga taagaystayaal aad u mahadsantahay Axmed Nagaash ayuu kaasi wararka caalamka ayuu nala socodsiinaya halkaad kala socotaan waa BBC dhageystayaal u diyaar garooba qabaha kale ee barnaamijka aynu ku bilownay ugu yaraan 15 qof ayaa dhimatay 10 kalena waa ay dhaawacmeen kadib dagaal shalay galinkii dambe ka dhacay degmada dan la helay ee wadanka Ethiopia Soomaalida degmadaas degan ayaa waxay sheegeen in ciidamo iskaashanaya oo isugu jira waa sida hadalka u dhigeen Anfar iyo waliba Tigray ay soo weerareen hase yeeshee dhanka kale ee weerarka loo tiirinayo wali wax wara kama hayno degmadaas dan la helay iyo degmooyinka kale ee Garbaciisa iyo Cadeyto ayaa sanadihii la soo dhaafay waxa ka dhacayay dagaalo soo laabtay oo dad badan ay ku dhinteen qaar kalena ay ku barakaceen hadaba Kariil Guuleed Buux wuxuu ka mid yahay odayaasha degmada dan la helay goor dhaweyd ayaan khadka teleefanka ku wareystay
xaalku haadan ogaan way degantahay hadda wax dhacayo oo dhagahayagu ay maqlayaan ma jiro. goorma ugu dambeysay oo ay wax dhaceen? waqti ay wax dhacaan ugu dambeysay xalay 8 habeenimo ayay ahayd. marka maxaa dhacay markaas? waxa dhacay waa dhawaadkii shanta marka ay ahayd weerar ballaaran ay nagu soo qaadeen dadkii xoolo dhaqatada ahaa tuuladii oo marka horeba ay sii gubeen oo saddex ahayd ayaa dadkii eeriyada ee xoolo dhaqatada ahaa weliba dhul ciidamada deegaanka ay joogeen way weerareen baan maqalay annaga dadkii tuulada iyo dadkii xoolo dhaqatada ahaa waxa lagu soo qaaday shalay shantii weerar ballaaran oo naxariis darro ayaa lagu soo qaaday nimankii haraabigii TDLFta iyo canfar gabaad siiso oo ay isgarabsadaan ayaa lagu soo qaaday bay ahayd. weerarkan bal nooga waran khasaaraha ka dhashay naf iyo maalba. weerarkan khasaaraha ka dhashay naf iyo maalba ku ballaaran ayaa ka dhashay. dhimashada iyo dhaawaca dhimashadu waa 15 maati bay leeyihiin, haween bay leeyihiin, odayaal bay leeyihiin, rag bay leeyihiin. adigu waxay noocyada isku jiraan waa 15 bay dhimashadu maraysaa, dhaawacuna ilaa 10 buu yahay. dadkii xoolihii way ka barakiciyeen oo xoolaha ay qaadeen baa jiro. magaalada waa laga barakacay, ubadkii iyo maatidii wixii noolaayay jaaka ayay ku sugan yihiin. hadda magaalada dhib ballaaran baa ka dhacday, way birilqaysteen. dadka xoolo dhaqatada ahana xoolaha ay ka qaateen baa jira. kooxahan idin soo weeraraya maxay idinka rabaan? kooxahani waxay naga rabaan waxaan garan karna maahin dhulballaarsi inay yihiin iyo inay ma arkaysaa cadowtinimo kale yihiin ma naqaano. kuwa weerare nagu haya weeyaan sanadahaniba, laakiin kuwii wax ku soo kordhay baan aragnaa imika. marka hore waxay ahayd canfar waxay dabada ay ku haysabaha ku hayseen, laakiin weerarkan shalay wax badan buu kaga duwanaa kuwii hore. oo muxuu kaga duwanaa? waxa uu kaga duwanaa hubka ay adeegsanayaan iyo xoogooga iyo tababarkooga military baad odhan kartaa. ma ahayn nimankii canfarada naqaana, ma ahayn hubka ay adeegsanayeenna wax badan buu kaga duwanaa oo kuwii ay qori shacabkida ma ahayn. kuwa xagga korka nagaga soo dhaco ayay nagu aayeen oo xaggan aan fadhino dusha kaga soo dhacaya dadka. dadkii deegaankaas ku noolaa ee shacabka ahaa iyagu maxaa ku dhacay? dadkii waxay ku dhacay dee way barakaceen oo ubadka imika tuuladii ubad uu ka barakacay, haween uu ka barakacay, cidlo jaaka haraada ayay ku sugayn. dadkii xoolo dhaqatada kadaalika isna dhul haraado ayuu u badheedhay. meel alla meel ay ku kala sugan yihiin ma naqaano. baraka xoogla walaalkay ka dhacay meesha. aaway ciidankii ammaanka ee deegaankiinan dan la helay, kuwii booliska iyo kuwii militarigaba miyaanay ilaalinayn dadka shacabka? ciidankii deegaanka waaba kuwa la weeraray meeshii dee lagu haystay iyo wixii ay iska caabiyeen iyo wixii khasaare gaadhay isma hubno. laakiin waxaan maqalnay inay weerar ku dhaceen oo weeraradan oo qayba loo qaybshaan maqalnay. laakiin waxaana soo galay annaga noo soo gurmaday ciidankii qaranka markuu soo gurmaday raggii ay wejiga isku hayeen oo soo dhexgala calankii tuseen. kuweenu had iyo jeer dee kuwa shacabkeenu waana shacab u bayna ahayd, kuwa sharciga u hoggaansan dawladda weeyaan. calankii markay arkeen xabadii way joojiyeen, waa uga baxeen meeshii. ciidamadii qaranka nimankii kolkay arkeen iskaashanayay markay arkeenna way ku bilaabeen, xabaday ku bilaabeen. ciidamadii qaranka iyo iyagaa isfara saaray. ciidamada qaranka gudooda khasaara la gaarsiiyey. xogtan dambe aad sheegaysid annagu ma caddayn karno, laakiin tallaabada xigtay aad qaadaysaan maxay tahay? annagu wax noo qorshaysan oo tallaabaha ilaahay eeg mooyaane wax tallaabo oo noo qorshaysan oo aan ka ahayn inay dowlad deegaanka soomaalida cabashada laga gaarsiiyo. dowlad deegaankana waan ku cabanaynaa. waxaan leenahay dad soomaaliyeed oo ku dulman oo nimanka ay xoog u adeegsanayaan oo ilaa 3 sano dulman. ciyaalkoogu kolka horeba waxbarasho aynan qabin, ay bahaloobeen. dadku gumaysi dulsaarahoo xoogan oo nimankii TDLFta ay gumaysanayeen baan nahay. kadibna habaabigoogii ay canfarayaan isku kaya kaasanayo hadda xoogayna saareen dhulkiiba naga barakicinayaan. dowlad deegaanka soomaalidana hana soo gaadho baan ka codsanaynaa. dad soomaali aan nahay ma nihin dad shisheeye. kaasi waxa uu ahaa Kaliil Guuleed Buux oo khadka taleefankii ugu warramay. wuxuu ka mid yahay odayaasha degmada dan la helay. dhanka kale xafiiska nabadgelyada ee dowlad deegaanka Soomaalida ee waddanka Itoobiya oo aan la xiriirnay ayaa waxay noo sheegeen inay ku guda jiraan sidii loo sugi lahaa ammaanka dadka shacabka ee halka ku nool. waa tahay markana sidaad warkaba ku maqlayseen saxaafiyadu dhalatay waddanka Shiinaha taasoo tabisay fayraska corona ee ka dilaacay magaalada Wuhan ee dalkaas ayaa waxaa lagu xukumay 4 sanadood oo xariga. Zhang Zhan ayaa waxaa lagu helay dambi ah in warbixinteedu ay dhiilo abuureysay, sidoo kalena dowladdu waxa ay ku heshay baa leeyahay inay horumarinaysay in dadka dhibaato ay soo gaari doonto oo safmar ah. marka faafahinta warkan waxaa inoo haya Axmed Mursal Xuseen.
suxufiyadan 37 jirka ah horeyna u ahaan jirtay qareenka ayaa la xiray bishii May dhowr bilood ayayna cuntada ka soontay intii ay xabsiga ku jirtay caafimaadkeeda ayaana laga dayrinayaa sida uu qareenkeedu sheegay Jan Zan ayaa ka mid ahayd dhowr suxufi oo dalkaasi u dhashay oo dhibaato kala kulmay wararkii ay ka tabiyeen magaalada Wuhan waraysi muuqaal ah oo ay siisay filim sameeye madax bannaan ka hor inta aan la xirin ayay Jan Zan waxa ay ku sheegtay in ay go'aansatay in ay bishii Febraayo ay u safarto magaalada Wuhan kadib markii ay internetka ka aragtay qoraal uu halkaas soo galiyay qof magaaladaasi degan markii uu halka virusku ka dilaacay wixii inta ka dambeeyayna waxa ay bilowday in ay soo gudbiso wixii ka dhacay dariiqyada iyo cisbitaalada inkastoo mas'uuliyiinta dalkaasi ay u hanjabeen warbixinadeeda ayaana si ballaaran ugu baahay baraha bulshada Jan Zan ayaa la waayay 14 May maalin kadibna waxa la shaaciyay in booliisku ay ku xireen Shanghai waxaana si rasmi ah dacwad loogu soo oogay horaantii November waxaana lagu eedeeyay in warbixino been abuur ah ay ku daabacday baraha bulshada ee kala ah WeChat Twitterka iyo YouTube-ka waxa sidoo kale lagu eedeeyay in ay waraysiyo viruska Wuhan ka dilaacay ku aadan ay siisay warbaahin shisheeye aad ayuu mahadsan yahay Axmed Mursal ayuu kaasi warbixintaasi nala socodsiinaya markana war kooban oo haatan soo gaaray warar ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in rag hubeysan ay 3 qof ku dileen xaafada Bundooyinka ee degmada Waaberi ee magaaladaas mid kalena ay ku dhaawaceen sida laga soo xigtay dadka deegaanka ilaa iyo haatan ma jirto waxa wara oo ka soo baxay saraakiisha ammaanka oo ku saabsan dilka saaka ka dhacay xaafada Bundooyinka ee magaalada degmada Waaberi ee magaalada Muqdisho sidoo kalena ma cadda cid ay ahaayeen ragga la dilay inkastoo wararka qaar ay sheegayaan inay ka tirsanayeen sirdoonka wixii warar ay ka soo koreen idaacadaha iyaga dambe aad ku maqli doontaan halkaad weli nagala socotaan si waa BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba waa tahay markana magaalada Muqdisho aynu tagnay xaaladda magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa maanta degan sida wararka ugu soo gaarayaan kadib markii shil halkaas ay ku dhaawacmeen dhowr qof kadib rabshado halkaas ka dhacay booliska iyo dad mudaharaaday ayaa isku dhacay kadib markii la xiray 10 qof oo kamid ah dad deegaanka u dhashay oo loo haystay inay la xirxiray dad u dhashay deegaankaas oo loo haystay inay baabuleen subaxyadii ka dhacay magaalada Beledweyne dhowrkii toddobaad ee la soo dhaafay dhanka kale maxkamadda gobolka Hiiraan ayaa waxay u dirtay dadka magaalada lagu tumayo in ay qayb ka yihiin barnaamijyada ka dhacay Beledweyne hadaba si aan u helno wararka ugu dambeeyay ee Beledweyne waxaanu toos u tagnaa magaalada Muqdisho halkaas oo khadka Lucy Life uu ka jiro wariyahayga Ibrahim Maxamed Aadan Ibrahim Obrino waran agayare xaaladda magaalada Beledweyne way degan tahay waxaana dib u soo laabtay ganacsiga magaalada iyadoo wadooyinka magaaladana ay dib u furmeen maalin uun kadib markii rabshado waaweyn ay magaaladaasi ka dhaceen oo ilaa 3 qof ay ku dhaawacmeen magaaladu way degan tahay noloshuna si caadi ah ayay ku soo laabatay dadkii la xirxiray in badan oo kamid ah waa la sii daayay balse qaar kale oo badan ayaa loo gudbiyay xabsiga dhexe ee magaalada gudoomiyaha maxkamadda gobolka Hiiraan Cabdiraxiin Maxamed Taako Saakay wariyaasha kula hadlayay magaalada Beledweyne ayaa sheegay inay sharci ahayd sifada loo xirxiray dadkii faraha badnaa ee dhowrkii maalmood ee ugu dambeysay Beledweyne laga qabtay dadweynaha reer Hiiraan ama reer Beledweyne dadka la xirxirayay sharci darro loo xiray sharci baa lagu xiray ilaa ay haddana ijraa'aadka sharci ay ku jiraan dadka xiran dadna waa la sii deeyay dadna ijraa'aadka sharciga loo maray ay ku jiraan marka ha istijiyaano booliiska xaq buu leeyahay inuu xiro kaliya waajibka saarana waxay tahay muddada sharciga u ogolaanaya booliiska inuu ku haayo xabsiga ay xabsiga ku jirayaan maxkamadayna la soo wadaagi doonaan hadduu Ilaahay yiraahdo in badanna maxkamaday la soo wadaageen xabsi xalaaleyn baa loo sameeyay si ay eedoodii iyo gungaarkii oo dhammaystiran ay maxkamaddu ula soo wadaagaan intay u keeneen inta la roomaan garay ee xabsiga loo dirina waxa weeyaan haddii qofka lagu soo eedeeyo dambi ciqaabeed annaga ijraa'aadka aan marayna ama procedure-ka aan marayna waxay tahay waa inuu gaal shir u gudbo qofkaas la roomaan garay sidaasna dacwadiisa ku socoto haddii uu waxa lagu soo eedeeyay uu bari ka yahayna xurriyadiisa ayuu qofkaas heli doonaa bulshadiisa ayuu ka mid noqon doonaa haddii waxa lagu soo eedeeyay dambiga ay sax noqotana ciqaabta uu leeyahay oo sharci ay maxkamadda awood u leh ay marsiin doontaa gudoomiyaha maxkamadda madaniga ee gobolka Hiiraan Cabdiraxiin Maxamed Taako oo la weydiiyay sida ay sharci ku tahay qof aan maxkamad la geynin inta laga saaro saldhigga in loo gudbiyo jeelka dhexe waxa uu ku jawaabay dadka xabsiga dhaxal loo gudbiyay ama loo gudbin doono sifo sharci darre loogu gudbinayo dariiqa ijraa'aadka sharciga ee maxkamadaha ay maraan ayaa la marsiinaya qof kasto dambi ciqaabeed lagu soo eedeeyo sharciga wuxuu nafarayaa in la ruumaan gareeyo sida uu qabo qodobka 46 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed
gudoomiyaha maxkamadda gobolka Hiiraan Cabdiraxiin محمد تاكو waxa uu digniin u diray cid kasta oo magaalada degan ee ku lug yeelata ama lagu tuhmay inay ku lug leedahay rabshadihii iyo soo baxyadii indhawaalaba ka dhacay beledweyne si gaar ah wuxuu digniin ugu diray bulshada rayidka sidoo kale odayaasha dhaqanka shaqaalaha dawladda rayidka ee hay'adaha dawladda u shaqeeyay iyo sidoo kale dadka u shaqeeya shirkadaha gaarka loo leeyahay waxaan digniin u dirayaa maanta dadka dawladda u shaqeeya ee la yiraahdo shaqaalaha rayidka ee xafiisyada dawladda ka shaqeeya dadka hay'adaha magaalada degan shaqaalaha ka ah dadka shirkadaha magaalada ka shaqeeya shirkadaha waaweyn ee la wada ogsoon yahay ka shaqeeya ee shaqaalaha shirkadeed ah odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan guud ahaan ganacsatada reer beledweyne intaas oo raboodkooda uu soo gaaray isbuucii la soo dhaafay in ay geedi fadhis u yihiin dhibaatooyinka ama rabshadaha ka dhacaya ee khalkhalka amni darre ee magaalada beledweyne looga keenay annagoo xeerinaya xaaladda jirto ayaan dib dhignay maanta marka waan digaynaa dadkaas waxaan leenahay koow ninka shaqaalaha dawladeed ah xafiiska dawladeed oo ka shaqeeya hay'adda u shaqeeya ama wasaarad ha noqoto waxaan fari doonaa in shaqada laga joojiyo si qofkaas sharciga loo horkeeno looguna maxkamadeeyo dambiyada uu galay qofka hay'ad u shaqeynaya magaaladan jooga hay'adaha caalamiga u shaqeynaya ee shaqaale ka ah masana fal dambiyada ka qayb qaadanaya rabshadaha ka qayb qaadanaya hay'adda u shaqeeya waxaan fari doonaa inay shaqada ka joojiso si maxkamad loo horkeeno waxa uu galayna loogu qaado haday sax yihiinna waxa uu galay ay dhab tahayna ciqaabta uu leeyahay loo marsiyo hadii uusan waxa uu galay waxa uusan galinna xorriyadiisa dib loogu siiyo loo baaro arrinkaas odayaasha dhaqanka waa la mid rabshadaha haday ka qayb qaadanayaan ayaga si toos ayaan u abaari doonaa waa la soo xiri doonaa waarankooda la jari doonaa waa la soo xiri doonaa waana la soo maxkamadeyn doonaa waxa ay ku eedeysan yihiin maxkamadda la horkeeni doonaa haduu ilaahay kaas wuxuu cabdiraxiin taakow gudoomiyaha maxkamadda madaniga ee Hiiraan waxa ka soo wariyay Ibraahim Maxamed Aadan markana bal ciyaarihii aynu eegnay maanta waxa dhici doona kulan muhiim ah waa koobka semifinalka ee maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir iyo koonfur galbeed ayaa kulmi doona hase yeeshee shalay ciyaartii dhacday waxa ku soo canbaxay Maxamed Maxamuud Axmed Sarkhawi oo khadka telefoonka igu waramay والله هرترون هانتي آذي آذا وفرح صنعي قوشة شلقارني أنا تيمتي بالمدب هانتي وحنا نواهد بول آذا نغن نقوم مهمة أنا وقود بين صان فينال رنانتينا آذي آذا يعني فرحة بيضا رنانتي بنسو طوبي كرو مسكح هذا مرنا ما كجرتي إن حدق قرون كاد نغندون تدمانتي شلايهايد والله رنانتي يعني عيارتي شلاي قولكي وبقول آذا أنا قود دالي بقول يكبرن با وارجين runaaantii laakiin laba gool baan micnihii aan helay marka inaan maanta aan ka dhex muuqdo ciyaartaas runaaantii aad iyo aad ugu rajaweynaa waana ku dhiiranaa inaan ciyaartaas ka muujiyo adiga halkeed ka soo bilowday ciyaarahan kubadda cagta wallahi aniga kubadda cagta waxaa ka soo bilaabay Puntland magaaladee haatan galmudug baad u dheelaysaa wallahi runaaantii horta kubadda cagta waa isdhexgal bulsho mana lahan meel aan ka soo bilowday iyo meel aan ku dhalatay kubaddana meesha adiga laga rabo ama kubadaada ay hore uga socon karto runaanti inaad tagtid oo hore uga socotidaas ambooska taaganta inaad taagnaato adiga nasiib xumo kugu tahay anigana macnihii horumar aan sameeyey inaan kubadeeda aan hore usamabada igeysin galmudug inaan matalo aan marka taa macnaheedu ma waxa weeyaan waxaad fursad ka weysay Puntland aniga Puntland fursad isiyana ma oran iyaga naftirkooduna imaysan arag oo macnihii dee kubadeeda iguma ayna qiimeyn macallimiinta iyo dadka soo xulay Puntland marna maanka ma ku haysay marka inaad mar uun ciyaarahan gobolada Soomaaliya ka ciyaari doontid oo waliba aad galmudug u dheeli doontid wallahi sideeda waxa ducul cilmiga gaarka aniga maamul goboleed inaan dheelo hamigeygu ka weynaa waxa hamigeygu ahaa inaan qaranka Soomaaliya hal malmaliyad oo aan matalo runaantii laakiin nasiib wanaag baartaan u soo socday marka xamar ini waxa matalay boobka degmooyinka hodana u dheelay nasiib xumo damaadka ku harnay haddana waxaan nasiib yeeshay inaan matalo galmudug haddeerna anagaas finaalka taagan insha Allah na xariijinayna inaan qaadno galmudug marka ma waxay kugu arkeen tartankan degmooyinka gobolka Banaadir ee aad hodan u dheelayso si fiican kadib maxay idin dhex maray maamulka galmudug runaantii ma ayna weydiin meesha ka iyo waxa ahay macallimiintana runaantii markii uu balaayirinta soo xushay waxa ka mid noqday nasiib yeeshay balaayirinta la soo xushay oo inay matalaan galmudug loo diyaariyay aad iyo aadaan ugu mahadcelinaya macallimiinta iyo kulli dhammaan madaxda reer galmudug waayo waxay isiyeen kubadeeda aan hore ugu soo wadi karaa haatan waad soo caanbaxday oo waxaad ka mid tahay xidigaha
tartankan magaalada muqdisho ka soconaya markii tartanka uu dhamaado kadib yaad jeceshahay inaad u safartid galmudug mise puntland wallahi labada gobolba runaantii waa goboladeydii labaduna way ii saman yihiin kulli maamul goboleedadana kii aan jaanis ka helo waa jecelahay inaan u dheelo sababto kaas waxa uu ahaa maxamed maxamuud axmed sirkhaawi oo kamid ciyaartooyda laacibiinta u dheelaya xulka galmudug ee tartan ka soconaya magaalada muqdisho ciyaaraha galabta waxay kusoo koran waad maqli doontaan balse markan baafinta waxaa si wada jira stuudiyaha BBC da ee magaalada Nairobi idinkaga soo tabinaya anigoo ah Caasha Saciid Xasan iyo Faysal Bishaar Aligo mahadsanid Caasha baafinta ugu horeysana maanta waxay naga soo gaartay Caawi Cabdi Nuur oo jooga Garow waxa uu baafinayaa Ruun Cabdi Nuur waxa uu hordanbeysay dalka Ethiopia sanadii 2017 hadaba hadii ayna maqlayso Ruun Cabdi Nuur ama bay jirto cid garanayso fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Caawi Cabdi Nuur ayadoo wix waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Garow nimco mursal cadow oo joogta Garow waxay baafinaysaa Cawaale mursal waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Yemen 2017 hadaba hadii uu maqlayo Cawaale mursal ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo nimco mursal ayadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Garow Ruqiya Sheekh Saalax oo joogta Garow waxay baafinaysaa dadka kale ah Maryan Ibrahim Sheekh Saalax Abuukar Ibrahim Sheekh Saalax Arbaay Jibriil Saciid dhammaan dadkaasi waxa ugu wardambeysay ayagoo ku sugan dalka Kenya sanadii 2005 hadaba hadii ayna maqlayaan ama bay jirto cid garanayso fadlan warkooda hala gaarsiiyo Ruqiya Sheekh Saalax ayadoo wix waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Garow Faarax Xasan Muuse oo jooga Garow waxa uu baafinaya Xasan Muuse Xasan waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Yemen 2019 hadaba hadii uu maqlayo Xasan Muuse ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Faarax Xasan Muuse ayadoo wix waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Garow Xamdi Maxamed Abdiraxmaan oo joogto Garow waxay baafinaysaa dadka kala ah Barrey Maxamed Abdiraxmaan Xabiiba Maxamed Abdiraxmaan Cabdi Maxamed Abdiraxmaan dhammaan dadkaasi waxa ugu wardambeysay ayagoo ku sugan dowladda Ethiopia sanadii 2001 hadaba hadii ayna maqlayaan ama bay jirto cid garanayso fadlan warkooda hala gaarsiiyo Xamdi Maxamed Abdiraxmaan ayadoo wix waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Garow Siraad Xuseen Cali oo jooga Garow waxa uu baafinayaa Nimco Colaad Axmed waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Koonfur Afrika 2018 hadaba hadii ayna maqlayso Nimco Colaad ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo Siraad Xuseen iyadoo wix waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Garow Faadimo Cabdullaahi Cali oo joogta Garow waxay baafinaysaa Biiriye Cabdullaahi Cali iyo Malyuun Maxamed Warsame waxa ugu wardambeysay ayagoo ku sugan dalka Ethiopia sanadii 2008 hadaba hadii ayna maqlayaan ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo Faadimo Cabdullaahi Cali ayadoo wix waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Garow Jaafar Cali Cumar oo jooga Garow waxa uu baafinayaa Maxamed Cali Cumar waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Finland 2018 hadaba hadii uu maqlayo Maxamed Cali ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Jaafar Cali iyadoo wix waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Garow Saado Mursal Salaad oo joogta Garow waxay baafinaysaa Warsan Mursal Salaad waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Djibouti sanadii 2019 hadaba hadii ayna maqlayso Warsan Mursal Salaad ama bay jirto cid garanayso fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Saado Mursal Salaad ayadoo wix waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Garow Xudeyda Diiriye Maxamed oo joogta Garow waxay baafinaysaa Fartuun Axmed waxa uu wardambeysay iyadoo ku sugan Yemen 2015 hadaba hadii ayna maqlayso Fartuun Axmed ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Xudeyda Diiriye ayadoo wix waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Garow Aadan Jaamac Ducaale oo jooga Garow waxa uu baafinayaa Zainab Maxamed Warsame waxa ugu wardambeysay Pakistan sanadii 2018 hadaba hadii ayna maqlayso Zainab Maxamed Warsame ama bay jirto cid garanayso fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Aadan Jaamac Ducaale ayadoo wix waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Garow Dahabo Cali Axmed oo joogta Garow waxay baafinaysaa Xaliimo Cali Axmed waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Kenya 2000 hadaba hadii ayna maqlayso Xaliimo Cali Axmed ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Dahabo Cali iyadoo wix waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Garow Qadar Axmed Ibrahim oo jooga Kormaari waxa uu baafinayaa Faysal Axmed Ibrahim waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Malawi sanadii 2015 hadaba hadii uu maqlayo Faysal Axmed Ibrahim ama bay jirto cid garanayso
garanayso fadlan warkiisa ha la gaarsiiye qadar axmed ibraahim ayadoo wix waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheer. madiine aadan maxamed oo joogta garow waxay baafinaysaa cabdulaahi diiriye waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan koonfur afrika 2018 haddaba haddii uuna maqlaya cabdulaahi diiriye amabay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo madiine aadan ayadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay garowe. faadumo cumar cilmi oo joogta miyiga waxay baafinaysaa xaliimo ibraahim isaaq waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka burundi sanadii 2003 haddaba haddii ayna maqlayso xaliimo ibraahim isaaq amabay jirto cid garanayso fadlan warkeeda ha la gaarsiiye faadumo cumar cilmi ayadoo wix waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheer. hodan cabdulaahi oo joogta garowe waxay baafinaysaa mursal cabdulaahi waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan koonfur afrika 2018 haddaba haddii uuna maqlayo mursal cabdulaahi amabay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo hodan ayadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay garowe. xamdi yuusuf cusmaan oo joogta buula kaskey waxay baafinaysaa yuusuf cusmaan guhaad waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka jarmalka sanadii 2009 haddaba haddii uuna maqlayo yuusuf cusmaan guhaad amabay jirto cid garanayso fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo xamdi yuusuf cusmaan ayadoo wix waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheer. aniso maxamed cabdiraxmaan oo joogta garowe waxay baafinaysaa dadka kale ah barey maxamed cabdiraxmaan xabiibo maxamed cabdiraxmaan iyo cabdi maxamed cabdiraxmaan dhammaan dadkaas waxaa ugu wardambeysay ayagoo ku sugan Itoobiya 2001 haddaba haddii ayna maqlayaan amabay jirto cid garanaysa fadlan warkooda ha la gaarsiiyo anise maxamed cabdiraxmaan ayadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay garowe. shamse cumar xasan oo joogta buula kaskey waxay baafinaysaa zaynab maxamed aweys waxaa ugu wardambeysay ayadoo ku sugan dalka suudaan sanadii 2004 haddaba haddii ayna maqlaysa zaynab maxamed aweys amabay jirto cid garanayso fadlan warkeeda ha la gaarsiiye shamse cumar xasan ayadoo wix waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheer. farxiyo inshaar cumar oo joogto garowe waxay baafinaysaa caaisho tuube cumar iyo caasho daahir cali waxaa ugu wardambeysay ayagoo ku sugan maraykanka 2000 haddaba haddii ayna maqlayaan amabay jirto cid garanaysa fadlan warkooda ha la gaarsiiyo farxiyo ishaar ayadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay garowe. cumar sharmaake diini oo jooga buulakaskey waxa uu baafinayaa suldaan sharmaake diini waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Ethiopia sanadii 2015 haddaba haddii uuna maqlayo suldaan sharmaake diini amabay jirto cid garanayso fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo cumar sharmaake diini ayadoo wix waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheer. yuusuf faarax axmed oo jooga garowe waxa uu baafinayaa maxamed faarax waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan koonfur afrika 2018 haddaba haddii uuna maqlayo maxamed faarax amabay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo yuusuf faarax ayadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay garowe. maxamuud liibaan cabdi oo jooga buula kaskey waxa uu baafinayaa cali liibaan cabdi wahaab waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka bakistan sanadii 2014 haddaba haddii uuna maqlayo cali liibaan cabdilwahaab amabay jirto cid garanayso fadlan warkiisa ha la gaarsiiye maxamuud liibaan cabdi ayadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheer. qureesh aadan geedi oo joogto garowe waxay baafinaysaa xaali cabdi waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Itoobiya 2002 haddaba haddii ayna maqlayso xaali cabdi amabay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda ha la gaarsiiyo qureesh aadan ayadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay garowe. ibraahim aadan axmed oo jooga baardheer waxa uu baafinayaa xasan guuleed waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Hindiya sanadii 2016 haddaba haddii uuna maqlayo xasan guuleed amabay jirto cid garanayso fadlan warkiisa ha la gaarsiiye ibraahim aadan axmed ayadoo wix waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheer. shamse maxamed oo joogto baardheer waxay baafinaysaa sacdiyo maxamed ciise waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan France 2013 haddaba haddii ayna maqlayso sacdiyo maxamed ciise amabay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda ha la gaarsiiyo shamse maxamed ayadoo wix waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere. tufaax axmed diiriye oo joogta baardheere waxay baafinaysaa faadumo axmed diiriye waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka China sanadii 2014 haddaba haddii ayna maqlayso faadumo axmed diiriye amabay jirto cid garanayso fadlan warkeeda ha la gaarsiiyo tufaax axmed diiriye ayadoo wix waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheer. nuurto cali siraad oo joogto baardheer waxay baafinaysaa xaashi cali siraad waxaa ugu wardambeysay isagoo ku
sugan India 2015 haddaba haddii uuna maqlayo xaashi cali siraad ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo nuurta cali siraad iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Baardheere. baafinta ugu dambeysana maanta waxay naga soo gaartay Hani Saalax Xuseen oo joogta Baardheere waxay baafinaysaa Xamdi Saalax Xuseen waxa ugu dambeysay iyadoo ku sugan dalka Finland sanadii 2006 haddaba haddii ay maqlayso Xamdi Saalax Xuseen ama bay jirto cid garanayso fadlan warkeeda la gaarsiiyo Hani Saalax Xuseen iyadoo wixii waraa loo sii marsin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Baardheere. baafintiina maanta waa naga intaa. bishaara liig iyo cashaad bay u mahadsan yihiin barnaamijkii baafinta ayna la socodsiinayaan anigana waxaan inta kusoo gabagabeynaya idaacadii duhurnimo ee uu soo saaray Axmed Mursal Xuseen anigoo Cabdi Ibrahim Cagaarna in la socodsiinayay Axmed Nagaashana uu warkan u akhrinayay Mubaarak Cabdallah oo farsamada inoo joogay waxa ay noo balana 5 galabnimo inta ka horreysay sidaas iyo nabadgelyo.